وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإبراهيم علي شدو maanta kasoo qayb galay Turkey Somali Business Forum waxaa la yiraahdaa maanta waxaa soo bandhignay productyada qayb kamid ah oo shirkadda Banaadir Coffee qaxwo Soomaaliga iyo Sinjibishi productiga caalamka dhan aan gaarsiino inta badan wadamada Scandinavian-ka, Europe iyo Canada iyo Australia marka waxaan xalay ugu talagalnay in wadamada ay ka faa'iideystaan productiga Soomaalida kafeegeeda inaan barno qaxwo Soomaaliga la yaqaanay dadka inay la qabsadaan taste ahaan oo ah mid aad iyo aad caafimaad ahaan iyo dhadhankaba wax ka duwan ay tahay wax caalamka inta badan yaqaanaan maadaama ay tahay dhadhan iyo taste annaga noo gooniya kaliya inaan caalamka la soo bandhigno barno annagana productigeena Soomaalida kale maxaa la yiraahdaa intii taqiinay oo ogaadaan wixii levelkii oo localka inuu ka baxay oo international level uu soo socdo insha Allah inaan la yiraahdo marka waan ugu hambalyeynaa sida aan noo dhiirigelisay dad badan Soomaaliya iyo bangiyada Soomaaliya iyo ganacsiga Soomaaliya si noo dhiirigeliyeen aad iyo aad ugu hambalyeynaya intii ka soo qabsan oo ku faraxdeen stage maanta ay wadankan dhalinyarada Soomaalida gaartay aad iyo aad waxaan ugu hambalyeyn TV-ga Home Cable asagana aad iyo aad ka noo dhiirigeliyay oo noo soo caalamka gaarsiiyay productigeeni iyo waxqabadkeeni iyo fikirkii iyo message-kii aan u wadnay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka aadaan ugu mahadsantiin insha Allah dhiirigelintiina ما شاء الله كسوف هو إبراهيم بسمي شركة اللي يراهدو شاهي قهوها بنادري كنت شركة اسمها كندا مقدشو الأباء حقيقيا ملا بدن بيجيان يوروب يو أفريقيا يو إستراليا أمريكا ما ترى كسو بديجين عربنا قناع سيجا الصومالية تفي كسو بديجين إبراهيم ما صدق يقول يسوي له ودونا هذه كم حسن